waxay si lama filaan ah ugu soo dhex booday qolka. Gray waxay isku dayday inay joojiso, balse gacanteedu waxay si toos ah uga dhex martay jirkiisa. Markaas ayay u qaadatay inuu yahay ruux ama jinni, waxayna cabsi darteed uga carartay gurigeeda. Ninkii ayaa weli daba socday. Waxay garatay in muraayadaha ay sabab u yihiin, markaas ayay si degdeg ah u tuurtay. Isla waqtigaas hooyadeed ayaa soo wacday. Iyadoo telefoonka qabanaysa ayay bilowday inay ka cabato ninka weli dhibaya. Ninkaas wuxuu awood u lahaa inuu kula xiriiro qalab kasta oo cod soo saari kara. Gray wax kale oo ay samayso way weysay, markaas ayay mar kale xiratay muraayadihii. Bill ayaa markaas sharaxay qofka uu yahay. Wuxuu sheegay inuusan ahayn ruux, balse uu yahay caqli macmal ah oo hologram ah. Lenska muraayada ayaa muuqaalkiisa soo bandhigayay, halka dhinacyada muraayaduhuna ay lahaayeen sameecado yaryar oo gudaha ku dhex jira. Dadka kale ma arki karin isaga, sidaas darteed Gray si qarsoodi ah ayay u isticmaali kartay. Bill wuxuu sidoo kale sheegay in shirkadu dhawaan iman doonto si ay alaabta dib ugu qaadato. Gray waxay ka shakiday inay tani tahay khiyaano. Waxay rabtay inay soo celiso qalabka, balse ma aysan ogeyn shirkada samaysay. Maalintii xigtay markay shaqada tagtay, waxay kombiyuutarka ka baartay magaca Bill, laakiin wax macluumaad ah ma aysan helin. Dhammaadka maalinta, madaxeeda shaqada oo doonayay inuu dhibo ayaa ku amray inay dhamaystirto draft badan. Faylal iyo dukumiintiyo fara badan ayaa horteeda isdul saarmay. Iyadoo walwala ildaran ayaa telefoonkii soo dhacay. Wuxuu ahaa Bill, wuxuu u sheegay in abaabulka xogta uu yahay takhasuskiisa. Waan ku salaamay abaayo ama aboowe, waxaan rabaa inaan gaaro 5k oo waxaa shanka ku gaari karaa adinka caawimaadiina. Haddii aan gaaro 5k waxaan ballan qaadayaa inaan bari doono hal shan qof idinka mida sida loo sameeyo muuqaaladan iyo meesha laga helo ee nagu soo biir oo wax naga faa'iid followna soo dheh. Kadib markay hubisay inuusan wax lacag ah ku dalacayn, waxay go'aansatay inay isticmaasho. Bill ayaa faraha isku dhuftay, kombiyuutaradii xafiiska si iskood ah ayay u shidmeen. Softwareyadii ayaa furmay, xisaabaadkii xogta ayaa si degdeg ah loo dhameeyay, natiijooyinkiina si toos ah ayaa loogu diray kombiyuutarka Gray. Shaqo maalmo qaadan lahayd ayuu daqiiqada gudahood ku qabtay. Markaas ayay Gray fahamtay qiimaha dhabta ah ee Bill. Iyagoo guriga ku sii socda, Gray waxay ogaatay in Bill leeyahay 3 qaanuun. Inuusan jebin karin sharciga. Inuusan been u sheegi karin qofka isticmaalaya. Inuusan samayn karin wax aan ka farxin isticmaalihiisa. Bill wuxuu codsaday hal shay oo keliya, maadaama qalabka uusan weli suuqa si rasmi ah uga soo bixin, aysan cidna u sheegin jiritaankiisa. Gray si tartiib ah ayay ula qabsatay, mana aysan sii nacbayn sidii hore. Markay guriga timid, waxay bilowday tijaabadii rasmiga ahayd. Waxaa loo baahnaa inay Bill u doorato muuqaal cusub, balse iyadu weli waxay jeclayd muuqaalkiisii hore, xitaa ma aysan rabin inuu dharkiisa bedelo. Bill wuxuu ogaaday inay dhibaato arag la soo kulantay, wuxuuna weydiiyey sababta. Grayse kama aysan jawaabin. Maalintii xigtay markay xafiiska timid, Bill weli wuu daba socday. Wuxuu ogaaday in mar kasta oo Gray iyo Jack isu dhawaadaan, garaaca wadnahoodu kordho. Labadooduba dareen ayay isku qabeen, balse midkoodna weli tallaabo ma qaadin. Isla markaas madaxii waaxda ayaa u yimid Gray isagoo u gudbinaya amar ka yimid maamulka sare. Sababtoo ah shaqadeeda oo si heer sare ah u qabatay, maamulka ayaa go'aansaday inay la socoto munaasabad rasmi ah, waxaana lagu amray inay dadka martida ah aqoonsato. Kadib wuxuu siiyey liiska martida Fibda. Gray waxay eegtay wajiyadii liiska ku jiray oo indhaheeda ugu muuqday kuwa qasan oo aan caddayn. Waxay ku sigatay inay waalato.